وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. العاقل كل العاقل من عرف الحقيقة، من استعد للموت ولما بعد الموت، من عرف مقصد حياته. العاقل كل العاقل، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. qofka caaqilka qofka dhaqaalaha badanna maaha, qofka adduunyada urursada maaha. addunya daaru man laa daara lahu buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. adduunyadu waxay daar u tahay ninkaan aakhira daar ku lahayn. wa maalu man laa maala lahu, dhaqaalahan adduunyadu wuxuu dhaqaalo u yahay ninkaan dhaqaalo aakhira ku lahayn. lahaa yajmacu man laa caqla lahu, adduunyada waxaa ururiya buu nebigu yihi ninaan caqli lahayn. caaqilku waa kee? waa ninka garta wixii adduunya kii keenay, waa ninka garta kii keenay iyo wuxuu u keenay iyo meesha loo socdo. man akyasu nnaasi wa akramu nnaasi ya rasuula allah. masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam buu nin soo galay, nin acraabi oo reer miya. markaasuu su-aasha nebiga u jeediyey, yaa rasuul allah, dadka ninkee baa ugu caqli badan uguna sharaf badan buu ka yidhi. umaba dheeraane wuxuu yidhi, akharuhum lilmowti dikraa wa ashadduhum isticdaadan lahu ulaa'ika hum lakyaas dahabuu bisharafi addunya wa karaamati alaakhira. dadka waxaa ugu caqli badan uguna sharaf badan kuwa inta badan geerida iyo aakhira xasuusanaya, maalinba maalinta ka dambaysana saayida aakhira ziyaadsanaya. kuwaasaa cuqaala buu nebigu yidhi, sharaftii adduunyada iyo karaamadii aakhirana kuwaasaa la tegay buu yidhi. sharafta aakhiro iyo karaamadii aakhiro iyo karaamadda adduunyada dadka ilaahay yaqaanaa la tegay. dadka meeshay ka yimaadeen iyo meeshay u socdaan u kala caddahay baa yaqaanaa. يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل. بنبي كويل أبو ذر، يا أبا ذر، يا أبا ذر بكيل الدوني ذا جديد سو بدو يقول دار توي كل قية سعيدنا الزياد سو سفر كودير يا هاي. حكود دجن ولا الكيجا مسلم كو شو وقتي وحال كيجا إلى هاي أوجي هاي. حكو قناعة في الدين لما أقوله، قناعة في الدنيا بالله أقول يحي. طاعدي عبادتي iyo diinta intaad haysato waliga ha ku qancin, ama adduunyada iyo kasbiga iyo arsaaqada inta ilaahay ku siiyo ku qanca. taasaa mustaxab oo la jideeyay. wa abadar azhadu ummati wa a'baduha bu nabi guri, wa annika ummadayda ugu zaahidsan ugu cibaado badan. man araada an yandura ila Isa ibn Maryam falyandur ila Abidar bu nabi guri. ninkii doonaya nabi Ciisa inuu arko Abadar al-Ghifari ha arka buu zuhdigiisa iyo sidoo adduunyada uga zaahiday. kaasaa nebigu dardaaranka soo mariyuu leeyahay, abaadar oo doonida jadiidso, iimaanka jadiidso, qalbigaaga adduunyada kala dagaalam, qalbigaaga cadamada lacagta maxabada lacagta kala dagaalam. baddu way ku liqi haddii kale, shahawaad iyo qaflad baa adduunyada lagu sheeriyo way ku liqi haddii kale. wa akthar zaada fa inna safara tawiil. saayidana ziyaadso safarku uu dheer yahay buu ka yidhi Abu Dar, safarku uu dheer yahay. sayidina Abaa Hurayra radiyallahu anhu ayaa sankaraadkii ooyey. markaasaa lagu yidhi Abaa Hurayra maxaa loo ooyeysaa? saaxibu rasuulillaahi baa tahee. wuxuu yidhi abkii liqillati zaadi wa bucda safarii. saayidaan wata yarideeda iyo safarkay sugaya islahayn buu yidhi. hada Abu Dar. cumar radiyallahu anhu waa ninkii nebigu yidhi, low kaana bacdi nabiyan lakaana cumar. haddii aniga nebi dabaday iman lahaa cumar baa nebi noqon lahaa buu rasuulku yidhi. jannadaan galay buu nebigu yidhi habeenkii micraashka, qasri jannada ku yaalla ayaan arkay, gabadh xawraa ayaa igaga soo baxday buu rasuulku yidhi. markaasaan ku yidhi liman hada alqasri, gurigan ayaa loo diyaariyey qasriga intan leeg. waxay tihi nin carab ka dhashaa loo diyaariyey, anigaaba carabe ma cid kalaa? haa nin qurayshaa loo diyaariyey, quraysh ka dhashay, anigaaba qurayshe ma cid kalaa? haa nin ummadda nebi maxamedaa loo diyaariyey, anigaaba muxamede ma cid kalaa? haa bay tiri cumar bnu khadaab baa qasrigan loo diyaariyey. hada cumar. walaakiin muxuu yidhi masaajidkii nebiga khudbadu ka jeediyey wuxuu yidhi, low naadaa min asamaa kullukum daakhiluuna aljannata ilaa rajulan waaxidan lakhiftu an akuuna huwa. haddii samada laga dhawaaqoo la yidhaha bini aadanka o dhan jannay galayaan, hal nin keliya naar ka galaaya, ninkaas inay ani tahan u malayn buu odhan jiray. qanaaca fi diin lama ogolo walaalkayga muslimkow. diinta intaad haysato ha ku qancin, adduunyada intaad haysato ku qanac, taasaa mustaxab ah. asxaabu rasuul sala allahu calayhi wasalam qarnigan
qurunta adduunyada soo martay qarniga u khayr badnaa bay joogeen saasayna ilaahay uga cabsoonayeen adduunyadu lama weynayn aakhirada la weynayd asbaabtii ashyaadu lama weynayn camalka saalix iyo iimaanka la weynaa makhluuq lama weynayn ilaaha khaaliq amarkiisa la weynaa man lam yarda biqada'i wa lam yasbir albala'i wa lam yashkur ala ni'ma'i falyakhruj min bayna as-sama'i wa ardi falyaltamis rabban siwa'i ba ilahi hadith al-qudsi man lam yarda biqada'i qadaha wixii aan ku xukuma adoonka raali aan ku ahayn nicmadaydana aan igu shukriyaynin balaayada aanu keenana ku sabraynin samadii arlada aniga sameystay ha iga tago meel kale ha qabto rabbi kalena ha sameystay ba ilaahay yiri ila ayna hakum mashghuulin shahawatka arzaaqad hungurigu waxaad cunayso inuuna ku seejin daacada ilaahay la tulhikum amwalukum wala awlaadukum an dhikri illah ay an taa'ati illah quraanku waa dacwad dhamaystiran weeyaan waa dacwad taama ilaahay baa dacwadayna siinaya ubadkaanu shaqeeya ubadkaanu ordaya iyo xoolahaagaad xisaabinaysa daacadda ilaahay inay ku seejin النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها الدويدن هل كان جنة النار تبا لقد ديار سنية هل كان لقد ديار سنية هل كان جنة لقد ديار سنية نارتين هل كانوا لقد ديار سنية أعماشي جنة اللي هل كان لقد قادنية أعماشي نارت اللي هل كانوا لقد قادنية فهيلو من طاعة إلهي أفر عدو بقرآن كإلهي نوشيغي أفر تعدو نيو الله والله دقالم نفتاد وعدو ويان إن النفس لأمارة بالسوء الديد وعدو جيني ويان فلا تغرنكم الحياة الدنيا شيطانك وعدو جيني ويان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا هود وعدو جيني ويان أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هادعين نفتاد شيطان كان هادعين الديد هادعين طاعة إلهين إنكو سيجن الدوية إلهي كوجعل هين أوصيا كوجعلين أوصيا نبينا عليه الصلاة والسلام أيام مالين كسحدي حصير صلي وكسحدي لقحدي بمركا فرحة كقبتي عمر بعد دولي مدول للميي وكوكا عين نبي عليه الصلاة والسلام يا عمر بوكين محاكا وهنا وحول يا رسول الله وحايقوا هنا يقول هذه رسولك إلهي أيا لقحدي فرحة كقبنيسا markaas nabigu ku yiri ya Umar maadi gashi kisantaay aniga may kala ka mashi kisaniye waxa ay cuntamila adigoo rasuulka ilaahay oo makhluuqa ugu khayr badana inay dhagaxdu feedhaha ka qabato kisra iyo qaysarna sirridahaba ay ku seexdaan jawaabta dhageyso walaalkayga muslimka wuxuu yiri ya Umar ama tarda an takuna lana al-akhirah wa lahum ad-dunya ya Umar ma adra liku hayn inay raaxada adduunyada iyo ku 60 sano ay qaataan inaguna raaxada aakhirah aan iska qaadano muslimku مؤمنكو لا دوني ما يسد ددك كلا inuu fikiro meel baad u socota tadamba kula weynaato tan ka tag lagu male tadamba haday kula weynaato tan adduunyadu way macaanaan hadba qofka inta lacagtu u ziyaado raaxadu uma ziyaado ogow hadba qofka inta adduunyadu u ziyaado walwali wal baharka ku ziyaada hadba qofka inta iimaanka iyo diinta iyo qurbi min Allah uu dhawaadana raaxada ayaa u ziyaadaysa من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قفك عمل وناكسن لي ماذا عمل وناكسن شنطة وقتي والجمع كتك تاياك ماذا عملك وناكسن من ذكر أو أنثى لبي يديك متكو دوني بهان نغضو إلى هيدي لبي يديك متكو دوني بهان نغضو وهو مؤمن حاله قفك مؤمن هو إيمان لي هي فلنحيينه حياة طيبة وكنا لينا نلن لقلنا لا توبو وناكسن مفسرين waxay yiraahdeen nolosha wanaagsan waa saddex weeyaan qalbiga ku daga arsaaqada kugu filaata iyo dadka oo ku jeclaada saddexda wuxuu ilaahay ku ballan qaaday inuu ku bixin iimaan iyo amal saalix hadii dadka laga helo iimaan iyo amal saalix marka lagu leeyahay diinta ilaahay qabso awaamirta ilaahay adkayso maaha adduunyada ka nuqsaamayse bal adduunyadu way ku ziyaadaysaa raaxa ku ziyaadaysaa أمنك كو زيادة من كانت الدنيا همه جعله الله الفقر بين عينيه وفرغ شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له نك همه سكد قبل الرسول كده الدوية قبو كفكرة
aakhiradii runta ahaydna daaqada ka saaray iska ilooba labada indhood inta u dhaxaysa faqriga loo saaraa arrimihiisana bari iyo galbeed baa rabbilciza ku kala shaydhiya adduunyadana maba hela intii alla u qadaray mooyaane waman kaanat alaakhiratu hamahu ninka hamigiisa ka dhiga buu rasuulku yihi aakhiro jacalahu allahu ghinaahu fii qalbihi qalbiga ayaa hina iyo raaxa looga buuxiyaa wajamaca allahu shamlahu arrimihiisao dhanna ilaahay baa iskugu soo dhoweeya wa aatatu dunya wahiya raaqima adduunyadana waxay u timaadaa iyadoo sandullaysan oo hoos socotay timaadaa buu rasuulku yidhi ha ka sii jeesan daacadda ilaahay walaalkayga muslimkow diintan wuxuu ilaahay noo siiyey si adduunkan iyo aakhiro aan ugu liibaano manaaficu diin manfacada diintu aakhiro keliya kama bilaabantee adduunyadana diinta lagu dhargayaa adduunyadana diinta cizi lagu helayaa adduunkana diinta raaxa lagu helayaa adduunyadana diinta amni iyo nabadgelyo lagu helayaa yaa طaalib الrisqi fi اdunya biquwatihi dadka maanta intooda badan daacadda ilahay waxay ku dhaafaysaa waa hungurigaas ismac يا طالب الرزق في الدنيا بقوته تدور فيها من بلد إلى بلد أتعبت نفسك ما لست تدركه وضاع عمك في همر وفي نكد لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا شربة ماء غير رزقك لم تجدي هداد هنقرق مالك استأمرته اسكدا أرلنا انتو تشغى كويدو هداد السماء الشغى لقوقو الشغى أجدون تشغى كبشبيو كوقرين مسو قادس أقصر عناءك فإن الرزق منقسم يأتي إليك ولو في جبهة الأسد تعبكاغا يريها ازدالين حوغاغا يا عقلغاغا يا عمرغاغا الدنيا كودا يعينه كلا ريبو واخردا دي هسيغن ارزاقا دادو هدي اللباح فودي ستالو ايدا كو ايمانيسه لا تعجلن فإن الرزق ليس بالعجل هدقدقن ارزاقا دا حوغي يقفف لغوما هله رزق مكتوب باللوح مع الأجل ارزاقا دادي يا عمرغاغا waxay ku qoran yihiin loox maxfuudka ma dhimanaysid ilaa arsaaqadaada dhameysatid ma hayn لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا ولكنه خلق الإنسان من عجل هذا الصبر لهين رزق يسقى نسود دون لها لكن بني آدم كان اسك دغدغي مر والبا وحول بدغدغ بو كدونيا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم